كفسي وكفسي It's not kufsi maaha ninkaagu uu ku qabaa maxaa haddii ninkaagu uu guursado aad u waalataa haddaadan lahayn maxaa maalintuu kula guursado aad dharka u dhigataa maxaad u gubtaa ninkaaga maxaad saliil kulul iyo biyo kulul ugu shubtaa haddaadan lahayn uusan adigana ku lahayn maxaad biyo kulul ugu shubtaa saliid kululna ugu shubtaa markuu kula guursado maxaa gabar aan waxba kuu geysan intaad u duulaan tagto u soo dishaa anuu qiso aan ku maqlay gobolada Soomaaliyeed gobol ka mid ah nin ay ka shakiday inuu gabadha shukaansado aawadeed ayay gabadh nafteeda ku dhaafisay qori intay soo qaadatay 10 xabadood ku dhufatay haddaadan lahayn maxaad gabadha u dilaysaa markuu guursado maxaad u qaylinaysaa oo dharka u dhiganaysaa qaarkiin waad bawaalateen oo mentally baad u xanuunsateen because waa ninkaagi oo naagu kula wadaagtay haddaadan lahayn uusan ku lahayn maxaad walaashayay aad u waalataa ood ugu qafiiftaa ninkan ilaahay abuurtay ee la yiri afar ayaa ku banaan okay taasi waa taas كفسي وكفسي it's not kufsi maaha ninkaagu uu ku qabaa nin waligiiba 10 caruur ka dhalay waan diiday walaal habeenka diyaar ma ahayn sababtaas aan diyaar u ahayn waan daalanaa dhibaatooyin fara badan baa i haystay jirkayga oo dhan baa daalanaa waa wax la gartay oo la oran karo diyaar uma ahayn balse miyuu leeyahay xaas adan ku weydiinaya xaaskaaga maadaa leh miyaad leedahay ninkaaga adaa iska leh ninkuna naagtiisa isaga iska leh haddaynaan lahayn oo inaan islahayn dee dunida kale dee magaalo oo dhan baa wada lahaan lahayd ninkuna naagaa kula wadaagi lahaa adiguna niman baa kula wadaagi kufsiga gabadha la qasbayo horta wax la qasbay wax qurux badan maaha wax fiicanna ma aha wax lagu farxana runtii ma aha oo dhadhan ma leh waxaana rabaa inaan ka jawaabo su'aashii ahayd raggu ma iyaga dumarka iska leh okay su'aashaas ayaan rabaa inaan ka jawaabo inay raggu leeyihiin dumarka iyo in dumarku ragga leeyahayba taas ayaan rabnaa inaan isla qaadadino waa tahay walaashay adaanu ninkaagu ku lahayn mid baan rabaa inaan kaaga yara jawaabo run ahaantii ragga iyo dumarku maalintaad is guursateen oo aad is xalaashateen ayaad ragga kale uu kaaga sokeeyay ninkaagu oo aad lahaatay isaguna uu ku lahaaday lahaanshuhu ma aha mid yacni abayuusa iyo mid lays dhibaataynayo iyo mid lays yacni si qaldan la isu isticmaalayo toona ma aha hal la fahmo lahaanshuhu ninkaaga adaa iska leh soomaad garan ninkuna naagtiisa isaga iska leh haddaynaan lahayn oo inaan islahayn dee dunida kale dee magaalo oo dhan baa wada lahaan lahayd ninkuna naagaa kula wadaagi lahaa adiguna niman baa kula wadaagi lahaa waa tahay waxaan rabaa inaan dul istaago inuu ku leeyahay in kale okay iyaga waynu leenahay saynu ogsoonahay oo dhibaatooyin fara badan ayaynu gaarsiinaa markay arrimaha qaar sameeyaan balse marka aynu arrintaa yar u yara diidno nama laha weeye macnuhu walaashayay waxaan ku leeyahay maxaa haddii ninkaagu uu guursado aad u waalataa haddaadan lahayn maxaa maalintuu kula guursado aad dharka u dhigataa maxaad u gubtaa ninkaaga maxaad saliil kulul iyo biyo kulul ugu shubtaa haddaadan lahayn uusan adigana ku lahayn maxaad biyo kulul ugu shubtaa saliid kululna ugu shubtaa markuu kula guursado maxaa gabar aan waxba kuu geysan intaad u duulaan tagto u soo dishaa anuu qiso aan ku maqlay gobolada Soomaaliyeed gobol ka mid ah nin ay ka shakiday inuu gabadha shukaansado aawadeed ayay gabadh nafteeda ku dhaafisay qori intay soo qaadatay 10 xabadood ku dhufatay haddaadan lahayn maxaad gabadha u dilaysaa markuu guursado maxaad u qaylinaysaa oo dharka u dhiganaysaa qaarkiin waad bawaalateen oo mentally baad u xanuunsateen because waa ninkaagi oo naagu kula wadaagtay haddaadan lahayn uusan ku lahayn maxaad walaashayay aad u waalataa ood ugu qafiiftaa ninkan ilaahay abuurtay ee la yiri afar ayaa ku banaan okay taasi waa taas
marka macnaha kufsigu walaashayay dadkan reer galbeedku waxay u soo dhigteen oo sharci uga dhigteen boqolkiiba 90 dadka degan waa og yihiin wayna yaqaanaan boqolkiiba 90 walaalayaal isma qabaan dadku isma qabaan waa la wada noolyahay waa saaxiib de saaxiibna lama qasbo walaashayay soo ma ogid adna waad ogtahay anna waan ogahay kuma qasbi karo saaxiibka dadkan kule sharci baanu ka soo dejinay kufsiga de gabadhii la kufsado ee la qasbo dhamaan waan salaamay asxaabta gabadhii la kufsado ee la qasbo ee banaanka lagu qasbo ee wada laga helo ama dhibaatooyin la isaga geysta cabdilaado aysan gabadhaay ninkaas isqabin oo uu maalinta la kulmay kadibna uu tutuubay ee gabadhii kufsaday taas waa kufsi sharcina waa ka yaala meel kasta okay gabadh wada laga helay gabadh meel lagu la ballamay intaasiba waa kufsi laakiin nin iyo naagis qaba habeen walbaad walaal wada joogtaan habeen walba ayaad wada nooshihiin habeen walba ayaad ogtihiin waxaad qabataan habeen walba ayaad xaajooyinkiina iyo hawlihii qoysaska qabsataan habeen qura aad diiday hadduu isna ku hunguriyeeyey oo uu ku yiri walaale waan kuu baahana adiguna aad diiday inaad tiraahdid waa kufsi aniga waxay qurux badna raggiinu waa raggiinii haddii kale yaynaan wada islahaanina iyaguna u daaya naagaha kale magaalada ha galeenoo ha shukaansadeene yaa oo naag ha kula wadaagto soo maad fahmin adiguna dee waxaan arkaa naagaha Soomaaliyeed inay wax badan diinta islaamka dhinac uga dhacayaan aniga oon dhihayn aayadaas iyo aadiyadaas oonan yacni odhan karin waxaas ayay ka leedahay sida aan wadaadadii ama culumadii iga horreeyay ay u sheegayeenba inayna caladi ku socoto dee aniga oon dhanka diinta ka hadlin ayaan dareemi karaa in ay dhibaato kugu socoto ninkaagii oo xalaasha ahaa oo kula jooga oo kula noolaa inaad tiraahdid isuma kaa ogoliyo waad kufsatayoo waan dee waa ku dacweynayaayo waa kufsi isnad kufsi ma aha ninkaagu wuu ku qabaa nin weligiiba 10 carruur kaa dhalay waan diiday walaal habeenkaa diyaar ma ahayn sababtaas aanan diyaar u ahayn waan daalanaa dhibaatooyin fara badan baa i haystay jidhkayga oo dhan baa daalanaa waa wax la gartay oo la odhan karo diyaar uma ahayn balse wuu i kufsaday anigu waxaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed arrintaas reer galbeedku si kale u dhigteen aad idinku si kale u qaadateen waxyaalo badan baa isaga kiin qaldan waan arkay dad la diintii baan ka baxnay dad nabigeena kaleey salaatu wasalaam af xumaynaya waan arkay waxay soo socdaanba dumarkii Soomaaliyeed anigu ragga Soomaaliyeed mid dhaha anigu noocaas aan noqday arkay inta badan diinka ma hadlaan markii runta loo hadlo mana dhex galaan diinta islaamka dumarka Soomaaliyeed inay dhex dabaashaan diinta islaamka iyo sharciyada laga dhigtay sidaynu aragnaba dadkan aynu la noolnahay waxay ku tala galeen inay baabiyaan diinta islaamka oo waxyaalo badan ka masaxaan si hadhowna diinta islaamka loo waayo ay noqoto mid aan faraba ku jirin marka dadka aqliga baranbarada leh ama aqliga jiirka leh ayaa qaata aqliyada qaar oo ay ku dhaqmaan dadkan aynu la noolnahay waxyaalaha qaar ay ku dhaqmaan marka walaalayaal ninkaagu ku leeyahay adiguna waad leedahay dumarka kale aad ka xigtaa waxaad ka xigtaa wax alaal wixii agagaarkaaga joogo dumara iyaguna sidoo kale ragoo dhan buu kaa xigaa oo ragoo dhan buu gabadhaas ka doortay oo uu guursaday xoolana ka bixiyay dumarka Soomaaliyeedna aniga oon u jawaabaynin gabadhaas hadalku ka soo yeeray dhihi karana anigu qalbadeeda kuma jiro waxay ula jeedayna ma fahansani anigu oo qofka hadaadan meel la joogin ama macnaha uu marka hadalka u dhigayay oo ka lahaa aadan ogeyn ma xukumi kartid okay gabadhaas eray baa ka soo dhacay farxiyo absiye miyaa la yiraahdo balse waxa ka xun ragga Soomaaliyeed ee tiriya ciribinta isqabsadeen culumo iyo generaal iyo jaamici ilaa isu habar wacday ee gabadhii 20 sano ka hor backgroundkoodii la galay ee gabadhii fadeexada qaladka hadalka ka soo yeeray walaalayaal intaad idinku gasheen baa ka badan ragow runtaan idin sheegay